wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya Dr. Saad Ali Shire ayaa maruu warbaahinta kula hadlay xarunta wasaaradda arrimaha dibadda waxa uu ka hadlay hadallo ka soo yeeray wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya oo ku aadna Somaliland oo uu sheegay inay Somaliland tahay qayb ka mid ah Soomaaliya sidoo kalena baasaboorkeeda waxba kama jiraan ku tilmaamay waxaana arrimahaasi ka hadlay wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Dr. Saad Ali Shire waxaana uu yiri aqoonsi muwaadin baasaboor noqonaya baasaboorkeena in la yiraahdo baasaboor ma ahay waa ID aba waa aqoonsi kaliya ka in martuuga mani waa baasaboor noqonaya hargeysa muqdisho ka dhacaya safaaradda iyo qunsuliyadda inta ka sakowiyaga aragtiyooyinkooda kala duwan inagu waxaan nahay qaran astaamale astaamihina waxa kamid ah baasaboor wadamo badan oo Turkiina waa ugu marka ma baasaboor ba mise ma hay waayay runtii arrin u yaalaba ma way waa baasaboor la aqoonsan yahay oo la disay sanadeen isku darsigaas runtii kastoo aan nidaamkii sharciga ahay la rabay markaan aan hadana muddo 30 sanadood ayay isku jiray 30 sanadood dhibaato badan ayay kala kulanay xastan intii dambe dadkeenu iyagoo markaa tixgelinaya dhibaatooyinka ka soo qabsatay muddadii ay isku jiray nimankii Soomaaliya isku ahayn wadankii dawladda ayaa waxay go'aansadeen inay la soo noqdaan xornimadii markii hore ay haysteen inteena ku darsan Soomaaliya muddo 25 sanadood ayay musawa ahayn wadan gooni taagan oo xora oo dimuqraadiya oo buuxiyay shuruudihii laga rabay wadan oo dhan inaynu wadan ahay inayna cidna martuuga mani caalamka saasuu aqoonsiyahay haddaynan haddaan saalaynu aqoonsadin heshiis layna la galeen oo layna saxdeen hay'adaha caalamiga ah heshiis la galaa waddamadaynu la galaa marka madaxdeenu ay tagto wadamada kale waxa loo soo dhaweeyaa masarka marka ay leeyihiin madaxweynaheena waxa la siiyaa soo dhaweynta iyo protocolka madaxweynayaasha la siiyo marka runtii arrinkaas inta cidna uga martini caalam baynu leenahay astaamaynoo gaara lacag inoo gaara baynu leenahay baasaboor inoo gaara baynu leenahay baasaboorkeenu inkastoo baasaboorku waliba uu yahay aqoonsi haddana dee muwaadiniinteenu waxay leeyihiin aqoonsi gaara baynu leenahay iyo baasaboor gaara saas baana ku qoran xagmaa kaga qoran waxaa jira wadamo badan oo aynu caalamku ku tagno baasaboorkeena oo laynoo viiseeyo taasoo runtii tilmaamaysa amba sheegaysa in laynoo aqoonsan yahay inaynu nahay wadan isagoo maamulkiisa leh oo aan qayb ka ahayn wadan kale waxaa jirtay Turkiga laftigiisa in dhowr jeer aan tagnay baa jirtay oo viisooyin aan ku tagnay noocay doonaan ba ahaadaane Turkiga laftigiisa wuxuu ku leeyahay safaarad buu ku leeyahay qunsuliyad buu ku leeyahay sidoo kale wasiir Saad ayaa ka hadlay arrimaha hay'adda Nile Academy oo la xiriiriyay inay ka mid tahay kooxdii isku daday afgambigii dhicisoobay ka dhacay dalkaasi Turkiga waxaanu wasiirku sheegay inay dawladda Turkiga xiriir kala soo sameysay sidii iskuulkaasi loo xiri lahaa hase ahaatee ka xukuumad ahaan ay sharciga u mari doonaan waxaanu yiri inuu wadan bay ku shaqeeyaan nidaam iyo sharcigu iskuulku ku dhisan yahay oo ku jooga shahaadad buu haystaa heshiiskan la galay fadmada dheera halka maxay dhahday ay hawlahooda ay ka wataan arday badan bay loogu jirta waxaan ku niri waxaan sameeynaa baaritaan baan sameeynaa haddii ay soo baxdo in iskuulka qalabka uu dhigay sharciga ka yiraahday laga yeelayaa haddii ay soo bixi weydana waxay noqonayaan dad aan dambi aan lahayn marka waxaan rajaynayaa runtii in arrinka iyo go'aankana ay walaaladeen inuu ixtiraamaan ayaa runtii ayaan rajaynayaa oo wixii marka aynu danweyno inuu sharcigeena raacayna inaan cilaaqaadkeena aan saameyn ku yeelanin waxaan yani runtii ugu dareenayna in cilaaqaad intaan ka siyaado deegaan yeelano waxtar badanna waan ka rajaynaa waan ugu dareenayna marka waxaan rajaynayaa arrinkaas inaanu waxba u dhimin si kastaba haatee xukuumadda Soomaaliya iyo dawladda Soomaaliya ayaa isweydaarsada hadallo noocan oo kala ah oo mid kastaba ku sheeganayso muqaddasnimada maamulkaasi Ahmed Khalid Farah Kalson TV Hargeysa.